waxaa duleedka magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo ka tirsan maamulka Puntland goor dhaweyd ka dhacay dagaal hub culus la isu adeegsaday oo u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab sida ay saraakiil u sheegeen BBC-da. dagaalkan ayaa daba socday weerar ay xubno ka tirsan Al-Shabaab xalay ku qaadeen xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. Al-Shabaab waxay sheegatay in ay xabsiga Boosaaso ka sii daayeen ilaa 400 oo maxbuus oo halka ku xirnaa. Ha yeeshee dawladda tirada maxaabiista baxsatay ma xaqiijin iyadoo ay sheegtay in qaar ka mid ah kooxdii weerarka geystay la qabtay. dhanka kale warbaahinta gudaha ayaa tabisay in tiro inta aad uga yar in halkaasi laga saaray. xabsigan waxaa ku jiray xubno Al-Shabaab ka tirsan iyo Daacish oo horey loogu riday xukumo kala duwan. taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari ayaa xalay warbaahinta kula hadlay xabsiga dhexdiisa. hadaladiisana waxa uu sheegay in baaris ballaaran ay samayn doonaan. waxaa jira maxaabiis la qabtay inay ku dhex jiraan baa suuragal ah, banaanka laga soo qabtay, waa la kala hubinayaa inay maxaabiista meesha ku jira yihiin iyo inay iyaga yihiin. baaritaankii baa socda, markaan baaritaanka dhammaystiro baanu inta kale u sheegaynaa bulshada. hadda waxaan ugu baaqaynaa inay tahay xaaladdu caadi, bulshadu isdejiyaan, shaqooyinka caadigaa socdaan, wax dhibana aysan jirin, meel kastana ay ciidamadu gacanta ku hayaan, joogaanna wax dhibaatana aysan ka jirin. xog sugan lama hayo inta uu la eg yahay khasaaraha ka dhashay weerarkii xalay. qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ayaa tabinaya in askar ka tirsan ciidamada Puntland lagu dilay weerarkaasi oo loo adeegsaday qaraxyo iyo rasaas. sidoo kale waxa ay boolisku xaqiijiyeen in 2 qof ay ku dhinteen weerarkii xalay. haddaba duqii hore ee magaalada Boosaaso ayaa BBC-da u sheegay inaan ahayn markii ugu horeysay ee uu dhaco weerar caynkan oo kale ah. maaha markii ugu horeysay xabsiga Boosaaso soo weeraraan. markasta muddadii ilaa iyo dawladii Cabdiraxmaan Faroole madaxweynaha ka ahaa waxa ay ku taamayeen ururada Al-Shabaab inay markasta target gareeyaan xabsiga Boosaaso oo ay kaga xirnaayeen dad badan oo maxaabiis ah. waxaan is dhihi karaa waxa laga baran karaa kow in ciidanka asluubta ee xabsiga ilaalinayay intii kiraankooda ahaa waa isku dayeen inay istifaacaan, laakiin waxaa meesha ka maqnaa aan is dhihi karaa maadaama magaaladan ka soo shaqeeyay amnigana muddo aan maaragtay u kuurgelayo aan ka shaqeynayay maamulka gobolka, degmada, taliska qaybta, hay'adaha sirdoonka isku xirnaan maamul baan jiray. sida ii muuqata waxaa ka garan kartaa response ay sameeyeen ciidamada BSF iyo BMBF yaa dib maxay tahay meesha ka saaray oo nimanka argagixisada dib maaragtay culays u saaray. marka waxaa muuqata habacsanaan maamul, waxaa muuqata mas'uuliyad isku koobid, waxaa muuqata inaan mas'uuliyaddu daadegsanayn. wahagaag haddaba si aan wax badan ugu ogaano wararkii ugu dambeeyay magaalada Boosaaso iyo guud ahaan gobolka Bari waxa qadka magaalada Muqdisho iminka toos ugu jira wariye Maxamed Deeq Cabdallah oo Puntland ka howlgala waa agaasimaha warbaahinta SBC. maxamed soo dhawow, marka ugu horeysana waxaad nooga warantaa xaaladda maxaa u dambeeyay. cisman waa mahadsan tahay. inta hadda la og yahay waxaa u dambeeyey howlgallada ciidamada ammaanka Puntland oo qaybo kala duwan leh ay ka sameynayaan buuraleyda magaalada Boosaaso dhinaca qorax ka soo baxa ama koonfur bari kaga beegan deegaanka la yiraahdo Gaaca iyo Grible, halkaas oo la tunsan yahay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ee xalay xabsiga soo weeraray inay u ruqaansadeen. halkaas howlgallo culus baa ka socda sida saraakiisha ammaanku nagu soo wargeliyeen, laakiin faahfaahin kaloo dheeri ah weli lagama hayo xaaladda halkaas wixii ka dhacay. waa tahay maxamed, waxaad sawir naga siisaa xabsiga iyo sida ay wax u dhaceen maadaama adiga halkaasi aad ka shaqaysood magaalada iyo xabsiga iyo qaabkiisa wax dhan si fiican aad u kala og tahay. cisman waa mahadsan tahay. xabsiga magaalada Boosaaso ama Soomaalida u taqaana Gaal Shire wuxuu ku yaalaa dhinaca bartamaha magaalada marka la joogo lagu tilmaami karo koonfur bari. markii hore meel aad u bannaan oo dadka deegaameysiga uu ku yar yahay buu ahaa, laakiin muddooyinkan waxaa aad ugu sii dhawaanaya dadka deegaanka iyo guryo laga dhisay walow weli uu haysto dhul ku filan. xabsigu waa xabsi ballaaran, qaybo dambe oo lagu kordhiyana ay jiraan. xabsiyadii ugu horreeyay Puntland laga dhisana ka mid ah. aad buu u ballaaran yahay dhul ahaan marka la qiimeeyo oo magaalada iyo mandaqada loo eego. dad kala duwanna waa lagu xiraa oo dunuub kala duwan galay sida dhinacyada Al-Shabaab, Daacish iyo dadka kale dunuubta gala ama dilalka, tuugada iyo wixii la mid ah oo faldambiyeed lagu helo oo dhan ama la soo qabto maxkamadaha soo mara baa la geeyaa oo xukunkooda halkaas ku qaata. marka
xabsiga 2020 December sidan oo kale baa weerar habeen lagu qaaday walow ciidamada ammaanku ay fashiliyeen laakiin weerarkii xalay mid ka xoog badan buu ahaa oo abaabulan oo xabsiga meelo ka baxsan oo wadooyinka magaalada ah gurmadka ciidankuna ka iman karay weerar kala ka dhacay oo ciidamada ammaanka lagu beegsaday xilli ay usoo gurmadeen weerarka xabsiga oo loo badinayo inay ahaayeen howlgal qorshaysan oo ku xiran howlgalkii xalay xabsiga ka dhacay marka xabsigu waa xabsigaas qaybaha ballaaran ka kooban qaybo kale oo hay'adaha burcadbadeeda la dagaalama ay dhismihiisa qayb ka qaateen oo dhinaca kale ku dhegan xabsiga ka mid ah baa jirta oo iyada xalay aanay waxba ka dhicin casrigana ayuu u dhisan yahay qaybtaas waa tahay maxamed waxaan maqalnay madaxweynaha puntland inuu halkaas maanta gaaray marka iyadana maxaad war nooga haysaa waa sax madaxweynaha puntland Saciid Cabdullaahi Deni socdaal dhinaca cirka ayuu kaga soo kicimay magaalada Garowe wuxuu tegay Boosaaso isagoo xiran dareyska ciidanka maadaama uu yahay taliyaha ciidanka ugu sarreeya Puntland ama taliyaha guud ee ciidamada Puntland waxaa halkaas hore uga dhacay shirar ka horreeyay la saakayba dhacay wasiirka amniga tegay mas'uuliyiinta heer gobol heer degmo iyo saraakiisha ammaanka qaybahooda kala duwan baa kulamo degdeg yeeshay kulamadii baa ilaa iyo hadda socda oo saraakiishii madaxweynihii guud ahaanba la leeyahay loogana wada hadlayaa sidii wax u dhaceen iyo mas'uuliyadihii iyo wixii oo dhan waxaana dowladda qorsheynaysaa war weyn inay ka soo saarto sida wax u dhacaan haddii daqiiqadaha soo socda waa tahay maxamed deeq cabdalla aad ayaad u mahadsan tahay agaasimaha s b c oo xabsiga magaalada boosaaso wixii ka dhacay xalay noo sharaxay wixii ka soo kordhana qaybaheena dambe iyo barnaamijyadeena online-ka iyo aad ku daawan doontaan kulana socon doontaan